مقعيسة حتى هو يقولوا ما فاهمينه عدالة ربنا عدالة كلية أهلنا هو يديس الله ساعته قاري لسانا أنا قلت له أنت لا بحوش ما في ذكرنا لا إله إلا الله والله بالله ما في ذكرنا مالك صدق ورقوال أيضا ما إلهك عبس ما ويلك هو يديس مساعدة كركو صارن حتى دب جاحة الوريد عدا سومالي عدالتنا هلنا ربنا مدحوينها سوماليا قدوميها قبلك وحان كعد سهينا أن باق دارو ديرينا ويلكينا قفك كو تقريبا شيء إن تيرك نولق هدان تيرك نولقينا وحي تجيسا قبيل نينا نولك كذا شماله nabadda wadayaal soo dhawaada magaalada caasimadda muqdisho run ahaantii waxa laga soo tabiyay dhacdo aad iyo aad u xanuun badan in badan oo badan barteedaan Facebook-ga waan idinkula wadaagay dhacdooyinka magaalada muqdisho laga soo tabinaya in ay maalinba maalinta ka dambaysa ay ka sii dareyso isla markaana dawladdii oo garwadeenka ka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka aamusayso runtii waa wax aad iyo aad loogu xumaado inaan maalin kasta idiin soo gudbiyo dhacdada ka xanuunka badan maanta dabcan magaalada muqdisho waxaa ka dhacay wiil yar oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo muwaadin ah oo dalkiisa jecel dalkiisa wax ku bartay maalinna meel aan uga bixin balwadna aan lahayn isagoo shaqaysanaya oo waliba wata mooto bajaajtiisa haddana ay u saarneed hooyadii dhashay walaashiisa ayaa nin askari ah si xaq daraa u dilay runtii waa xanuun in hooyo Soomaaliyeed wiilkeeda oo garabkeeda fadhiya in madaxa xabad loogu dhufto naxdinta ay dareemayso miyaad qiyaasi kartaan kaaga sii daranay waxba uma qaban karto xabadii madaxa loogu dhuftay maskaxdiisa ayaa daadatay iyo dhabta ku haysaa runtii waa hooyo marnaba umaysan qalmin mana aysan mudneen wiil ay ku soo tiir iyo tacab beeshay in horteeda lagu dilo walaashii ayaa qeylinaysa oo ilmeynaysa hooyadii ayaa hadalba ka soo bixi waayay naxdin darteed dadkii deegaanka iyo agaarka ka agdhawaa ayaa aflabadii yeeray way kaceen banaanbax xoogan ayay dhigeen wadooyinkii ayay xireen si hooyadaasi Soomaaliyeed ay cadaalad u hesho runtii waa xanuun maxay madaxda Soomaaliyeed ay xilka u qaadeen haddii aysan shacabkooda waxba u qabanaynin aaway madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed aaway ra'iisul wasaarihii xukuumadda aaway taliyaashii shaqada ku lahaa dhanka amniga maxay tahay sababta maalin kasta saacad kasta xilli kasta dadka aan waxba galabsan loo leynayo maxay tahay sababta askartan balwada leh inta qoryaha loo dhiibo loo leeyahay wadooyinka istaaga oo dadka simcina dara u leeya runtii waa xanuun weyn oo aan indhaha laga fiirsan karin daawade waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inta aad qabato in aad meel kasta gaarsiiso si hooyadaasi Soomaaliyeed ee xitaa hadalkii ka soo bixi la ee cadaalad u hesho waa naxdin darteed waa ay faraxsanaayeen qoys waxay ahaayeen run ahaantii farxad gurigooda ugu soo baxay wiilkooda yar u shaqeynaya ayay garabkooda fadhiyeen dabcan dana gaar ah ayay ka lahaayeen meel ka mid ah magaalada hase ahaatee waxay la kulmeen dhacdadan aan fariirka ah ma raba inaan muuqaalka idinku dheereeyo balse waxaan idin xasuusinayaa codsigayga ahaa in muuqaalkani aad meelo badan gaarsiisaan si madaxdii dawladda ay u arkaan kolay way arkayaan waa ayna ka sii socon doonaane balse waa in hooyadaas Soomaaliyeed ay cadaalad heshaa aan isla daawano muuqaalka مقعيسة حتى هو يقولوا ما فاهمينه عدالة ربنا عدالة كلية أهلنا والله بالله تلا بقول بويا قاري لسارت الله أنا وهي لاني ماشان ما على كوس اللي جوين حبذاين ويلك هو يدي سامس كحدا كركو صارن حتى دب جاحة الوريد عدا سومالي عدالة أنا كستمد ولا لينا يا بجاز لا لدري حبذا على غرفتي عندك وعارك جرا واجي فرماجو وعلى اللي جي بجاز لا لدري وعاثنين حشي محمود كسر رينا يا حالدان واسبدل ساسنين حشي محمود حالدي
waxay timaadday in macnaha maalin walba ummadda la laayo waxba galabsan hooyadiisa oo la socdaani habaryartiisa ah hooyadiisa iyo walaashiisa oo la socoyay hooyadiisa amsiyaadka cariif ee ka shaqaysa waxba ma uusa galabsanin marka wax cadaalad oo saaka helna ma leh gudoomiyihii degmada oo sugaynay xabadaanu lagu shubay macala kuwa saldhiga wayna xabadeeyeen wiilka hooyadiisa maskaxda korka u saaran xataa daba jeexa lagu rido Soomaaliya cadaalad inaan helnaa rabnaa madaxweynaha Soomaaliya gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa oo baaq dheer u dirayna wiilkayna qofka ku takrifashay in tiirka noolaga hadaan tiirka noolagayno waxay tagaysaa qabiil ninaan dhulka ka dhashay ma leh madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsadaa in cadaalada wiilkayna oo hela saaka hooyadiisa soo shaqowla ka lahaaya la dilay wada xataa ma oo soo galinin meeshii lagu dilay waa la joogaa wada soo ma galin wariga joognina cabsan oo taraamo doolitaan buu soo cuna xalay oo jaadkii u gooyay inuu maalin kasta nin aqoon-yahan oo wax bartay inuu dilo cadaalad xumo waay inaa cadaalad si degdeg leh waxaan baaqa koob u dirayaa taliyaha saldhiga oo degmada Howlwadaag ninkaas xareesa la dhaha noola soo bixiyo ninka hadaan noola soo bixina qabiil ay tagee qabiil cadaalad hadaan ku weyno qabiil ay tagee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wiil magaciisa hooyadiis Maryam Nuur Faarax la dhaha wiilka wax aan magaciisa xataa hooyga dhuma ma fahmino cadaalad rabnaa cadaalad kaliya aan helno hadaan cadaalad helino qoray ay tagee qoray badbaadiyo ummadda shacabkana badbaadiyo ummadda shacabkana badbaadiyo ummadda inuu badbaadiyo shacabkana badbaadiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud baarlamaanka la doortay ma ahan dadku waxay u yihiin in usqadiga baarlamaanka la doortay waxa la rabaa ummadda inay matalaan ma ahan inay iska fadhiyaan waxaan halkan dacwo ka nahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo maalinta cashuurta nagala qaado hubka loogu soo gado lagu dilo hubka ciidanka Soomaaliyeed shalay markii badbaado qaran ay iimaanaysa dadku gurmanaa waxaana dhiig u shubay hadda maanta markay talada helaan taliyaha nabadsuguda maasalaad oo shalay qeylay maanta sax nagu dilay oo san iimaanayn ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo nabadsuguda Soomaaliyeed saddex gurmad isgoos kala saaki maanta la taagan saddex talmeedkooda taal ciidanka booliiska iyo nabadsuguda isku daran isgoos kala wada jooga nisa iyo booliisku daran waay taliyaha booliiska gobolka Banaadir Korneel Mahad iyo taliyaha داوعنا قدمت كيس دعنا قدمت سد حد مش تالساك أنا قدرت ما تاريخ أنا تلسك بوليس ولا عندنا يا ضد كان قاعد كل جلياشة أو إلى أنا كبقين ومتى الشعب كان اللي يرضى ويل الصومالي هاي الصومالي ويل داب كنتو كنت مطوق قدي أو حق كل شيء قيسنا يسوع هالكس كل لاين وعن كرمنا عيدك بوليس الصومالي ضد كان قاعد كل جلياشة نوصل قبطان أو شرع الهرجة شو تينا كارن كاميرا يقول تينا ربنا هو يديس الله ساعته قاري لسنا قالوا قرد اللي أنت لا بحث واحد ما في ذكرنا لا إله إلا الله والله بالله واحد ما في ذكرنا مالك صدق ورقوال أيضا ما إلى ركاب سماء هل كانوا أزجوج كل وذاك وعقول ما تسدح روحه وعقوبة أن حقوق إن دولة فدرال كيلان وحالك عقوبة قيا مدحونا جمهورية فدرال كصوماليا وحنا وحن بحنا عن شورتي قولك بنادر وحلا قادم اللي يرضى بجاج لي ذوا وحن بحنا رساس ساكن اللي قد لي عن شورتها بحنا واي وعقوبة أن حقنا وحالك أسد عقوبة أن أنت حقنا أما عدالة نك دي اللي سو قرب دغان سوغينا انك ادام بجاج لينا انا كو الله افك بجاج دليل بجاج والله سيدح قف وير عاسلا ير لبا موتولا iyo hal ii sheeg shacaba adibkaas gaar سدح waa dhimashada daawacan waa hal waxaan sugaynaa waxaan rabnaa xaqeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halkan waxa ugu dirayaa baaqa ugu dirayaa mudane Xasan Sheekh Maxamuud ummadda Soomaaliyeed dhanade dusku saaran yihiin waxa u baahnaa xaqeena waxaana dhalinyarada ku shaqaysata mooto bajaajka waxaan rabnaa inaan ku shaqaysano si xuriyada ma ku shaqaysan kari mootada ma ku shaqaysan kari si xuriyada waxaan halkan baaq ugu diraynaa madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud isaga ummadda الله إدمادي مسؤوليته إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وأتي رسولك صلى الله عليه وسلم سيداك ضيع ناير كيف أضعتها إذا أسند الأمر في غير أهلي فانتظر الساعة مدن مدحوين وحنكا عسنين ددك أهلك وها إن هلكا كنت أسكري ددك اسكدي لها سبرارة ددك ودي لها حتى كما هين قتل العمد
waxaas caadi dil caadi ayaa meesha ka dhaca oo bareera sidaa arkayna askariga labaad sidaa arkayna askariga labaad markii wiilka labaad markii la dilaa bajaajlaha si bareer waa ka hadda xabadaha way iska ridayaan xabadahana waa canshuurta oo bajaajleedu waa $15 bishi laga qaad marka walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay xukunka fuliyaan ee cawaabeel run ahaantii waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo aad u firfircoon dalkiisa wax ku bartay dadka deegaanka waxay inoo sheegeen in weligiis aan laga soo sheegan uu ahaa nin aad iyo aad u shaqo jecel isla markaana garab taagan waalidkiisa iyo walaalihiisa maanta waa meyd waxa loo baahan yahay inuu cadaalad helo waxa loo baahan yahay qoyskii uu garab taagnaa in ay cadaalad helaan isla markaana askariga sida gardarada ah wiilkooda u dilay inta la soo qabto oo tiirka la soo istaajiyo mudankiisa la marsiiyo ma sii wadi kara muuqaalka daawade waxaan idinka codsanayaa oo mar kale idin xasuusinayaa in muuqaalkani aad meelo badan gaarsiisaan si uu wiilkaasi iyo ehelkiisaba ay cadaalad u helaan